عقاشة waxgaradka iyo labeenta beelaha Suweer waliya habar jeclo ayaa maalmihii u dambeeyay shirar uga socday gudaha magaalada Burco oo ay kaga arinsanayeen ayahooda mustaqbal iyo sidoo kale inay siyaasadda dalka meel uga soo wada jeestaan. Cuqaashan iyo waxgaradkani labada beelood ayaa waxay shaaciyeen in isla qaateen in cod iyo taageeraba la barbartaagan yihiin xisbiga kulmiye. Waxaana markii uu shirku soo idlaaday warbaahinta u akhriyay qodobadii la isla qaatay suldaanka guud ee beelaha Suweer wal Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan iyo suldaanka guud ee beelaha habar jeclo Suldaan Cabdillah Suldaan Ali waxaana hadaladoodii kamid ahaa shirweynihii labada beelood uga socday magaalada Burco ee gobolka Togdheer caasimadda Togdheer inuu maanta noo soo gaboobay oo uu ku soo gabagaboobay isafgarad iyo guul ku soo gabagaboobay oo noogu dhamaaday ayaanu halkan ka naadinaynaa oo aan warbaahinta iyo ummadayada u sheegaynaa. waxa ka soo baxay qodobo dhowr ka soo baxay qodobadu waxa weeyaan kow in la adkeeyo jiritaanka qarannimada Soomaaliland iyo in la adkeeyo nabadgelyada guud ee dalka oo xil weyn insha Allah bidmillaahi karim beelaha iyo beelaha kale iska saaraan. waxa kale oo ka soo baxay qodobka labaad wuxuu noqonayaa markay labada beelood aad u falanqeeyeen shirar muddo dheer u socdayna ay soo wada qaateen maadaama maanta ay nagu soo dhowdahay doorashadii madaxtooyadu maadaama xisbiga kulmiye waxqabad badan dalkan ka qabtay oo uu maanta aynu arkayno waxqabadkiisii hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay waxbarasho iyo hadday dhinacyo badan tahay si uu u qabyo tiro labada beelood waxay ayideen isku raaceen inay dhisaan insha allahu bidmillaahi karim sida shacbiga kale Somalilandba u dhisaayo xisbiga kulmiye dhisaana musharaxa Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka sharaxan ee Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici sidaasaanu gacmaha isu qabsanay ee isugu yimi halkan shirka kan beesha habar jeclo iyo beesha awal ee falanqeeyay noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo karaamadooda waxay isla garteen inay mowqif iska wada taagaan siyaasadda maanta socota kana wada shaqeeyaan xoojiyaanna xusbiga kulmiye madaxweynaha yaanu isla garanno sidaas baa xaalkii noogu dhammaaday. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu nabadgeliyo iyo wanaag inoogu dhammeeyo. ummadda Somalilandna waxaanu ugu baaqaynaa inay nabadgelyada xoojiyaan oo meel uga soo wada jeestaan oo axsaabtu waa kubad la cayaaraya. kubadda marka hore lagu sii socdo waxaad moodaa in laysu cadhaysan yahay marka laga dareero qola badisona waa laysu qoslaa. markaa doorashadu waa sida waa in ceeblaan iyo walaalnimo lagu galaabaanu ku dardaarmay. geesta kale waxa bogaadiyay shirkan iyo qodobada la isla qaatay boqor buun madow oo ku sugnaa goobta uu shirku ka socday. beelood ay isla garteen oo isla qaateen in si wada jira oo dhammaystiran loo taageero oo loo dhiso musharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici. waxa weeyaan beelaha habar jeclo waxay go'aansadeen inay si dhammaystiran iyadoo uu gudoominayay suldaanka guud salaadiintii kalena ay hareer fadhido dhammaan beelaha Somaliland gobolada ilaa isaga timid beelaha habar jeclo in si dhammaystiran loo taageero loona dhiso laysuna garab taago xisbiga iyo